waxaa si rasmi ah magaalada Burco uga furmay shirkii labaad ee golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani kaasi oo ka qabsoomay hotel Cafe ee magaalada Burco madal bilan oo aad loo qurxiyay ayaa martida iyo xubnaha golaha dhexe hoggaanka xisbigu ka soo xaadireen waxaana sidoo kale goobjoog ka ahaa xubno ka socday labada xisbi ee kulmiye iyo uciide gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga wadani Cismaan Afyare ayaa ka warbixiyay madashan iyagu soo ajiibay inta processkooda dhamaysteen maanta howlka ku sugan oo ah intii loogu talagalay inay maanta ka qayb qaadato shirkan ka furmaya magaalada gobolka Togdheer ee Burco gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ah ee uciid Maxamuud Cali Zaleebaan Ramaa iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibrahim Nafaqo ayaa ka hadlay shirweynahan waxaan ku hambalyeeyaa shirkiina golaha dhexe ee labaad ee ku qabsateen maanta halkan xaruntan gobolka Togdheer aad iyo aad baan ku hambalyeeyaa waxaan looga baahan yahay in ay noqdaan iyo u muuqdaan saaxadii siyaasadda ee laga dagaalgalay ma aha dagaalka la gelaya waa dagaal fara guud ahaan inagu manaystay oo ah amniga waana tan ay muhiim tahay inaan ka wada shaqayno mid maxaafida iyo mid mucaarada iyo shacabweynaha dhammaan saraakiil sarsare oo xisbiga wadani ah gudoomiyeyaasha gobolada dalka qurba joog iyo haweenweynaha xisbiga ayaa ka hadlay munaasabada furitaanka ayaa guul iyo sharaf ku tilmaamay qabsoomida shirweynaha labaad ee xisbiga wadani hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa guud ahaanba u mahadnaqay shacabka golaha dhexe iyo dadweynaha ka soo qayb galay munaasabadan maadaama Burco ka soo jeedo waxaan leeyahay ku soo dhawaada gobolkii xagee gobolkii halgankii xorriyadda laga aasaasay ee Togdheer xaruntii gobolka Togdheer xaruntii laga aasaasay xorriyaddii ma aha sheegasho waa halkii giib lagu dilay ee koofil lagu dilay ee uu guumaystu cagacadaanta kaga baxay war miyay sheeganaysaa Burco mise way jirtaa waa Burco mar labaad waa xaruntii halgankii hubaysnaa ee lagaga soo horjeeday xukuumaddii militariga ahayd uu ka tisqaaday weey gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo khudbad dheer ka jeediyay xafladan ayaa taageeray dugsiyada gaarka loo leeyahay waxaanu cadaalad darro ku tilmaamay in la dhiirigeliyo ubadka saboolka u badan ee ay ku jiraan caruurta ciidamada iyo shaqaalaha dawladda hooyooyinka dayarta ah ee suuqa u fadhiya barbaarinta ubadkooda kuwaasi oo dhigta dugsiyada dawladda dugsiyada gaarka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay qayb muhiim ah ka qaataan horumarka dalka ee waxbarasho waa shaqo abuure waana cashuur bixiye qodobka 15 ee dastuurka ayaa jideynaya in la abuuri karo dugsiyo iyo barnaamijyo waxbarasho dugsiyada dawladdu kaligood kuma fulla inay daboolaan baahida waxbarasho ee dalka foolxumo weyn bayahay in deeqdii waxbarasho ee dalka Itoobiya nasiisay ee dhammayda 450 jago laga qadiyo ardayda ka soo baxday dugsiyada gaarka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cirro wuxuu jeediyay dhaliilo xadka ka baxsan oo dhamaantoodu ku tilmaamay in lagaga bixi karo kacdoon shacab sidii Tunisia ka dhacday 2011 waxa astaan u noqotay xukuumadda kulmiye dhowr islaanta iyo ku tumashada xorriyadka aasaasiga ah sida xorriyadda hadalka iyo saxaafadda oo dhalin kara kacdoon dadweyne gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro wuxuu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo cod shacab iyo hanaan dimuqraadiya ku yimi ku tilmaamay keligii taliye taasi oo la macna jabhadnimo iyo qori caaradi in kursiga lagaga kiciyo waxaana uu muujiyay kalsooni darro uu meesha kaga saaray in xisbinimo lagu bedelo
waxaan rumaysnahay in Somaliland maanta ka bilaabantay keligii talisnimo ama dictatorship maanta dalkeenu keligii taliyo uma baahna keligii taliyuhu isagaa jabhadaha dhala cabsaaq faarax cabdilaahi TV-ga qaranka Somaliland burco